kusoo dhawaada wararka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda qodobada aan ku soo qaadayno waxaa ka mid ah maamulka masjidka xaramka oo beeniyay warar laga faafiyay imaamka Sheekh Cabdiraxmaan al-Sudaysi ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ogolaaday wareeg cusub oo wada hadal ah Mareykanka oo hub dheeri ah u diray Israa'iil madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo lagu haysto muuqaal uu ka faafiyay madaxweynaha iminka talada haya dalka Mareykanka Joe Biden kormeerayaal ka tirsan qaramada midoobay oo ku dhaawacmay duqeymo ka dhacay koonfurta Lubnaan dadweynaha Turkiga oo codkooda ka dhiibtay doorashooyinka dawladaha hoose iyo xisbiga madaxweyne Erdogan oo doonaya inay dib uga soo laabtaan magaalooyin horey looga adkaaday doorashooyinkii hore aan ku bilaabe maamulka Mareykanka ayaa ogolaaday inuu u diro Israa'iil shixnado huba oo ku kacaya 2.5 bilyan oo dollar inkastoo Washington ay shaacisay cabsida ay ka qabto weerar la filayo inay Israa'iil ku qaado Rafah wargeyska Washington Post oo soo xiganaya ilaa la isku halayn karo oo rasmi oo ka tirsan wasaaradda difaaca iyo dawladda Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Joe Biden uu ogolaaday in Israa'iil laga iibiyo 25 diyaaradood oo F-35 ah iyo kumanaan bambooyina ilahaas ay soo xigatay Washington Post waxay xaqiijinayaan in xirmooyinka cusub ee hubka ay ka mid yihiin in ka badan 1800 oo MK84 bambooyin ah oo midkiiba culayskiisu uu yahay 2000 oo rodol iyo 500 oo ah MK82 oo midkiiba uu yahay 500 oo rodol baraha bulshada waxa saacadihii ugu dambeeyay lagu baahiyay qoraallo ay dad badan faafiyeen oo ku saabsan khayrka ku jira habeenka Laylatul Qadriga kaasoo inta badan dadka qoraallada soo dhigay ay soo xigteen imaamka masjidka barakaysan ee Makka Sheekh Cabdiraxmaan al-Sudaysi nuxurka fariinta baahday ayaa ahayd in ka faa'iideysiga habeenka barakaysan uu ruux kasta u heli karo si gaar ah maamulka masaajidka barakaysan ayaa beeniyay fariinta la faafiyay oo loo tiiriyay sheekha iyagoo qoraal kooban oo la soo dhigay barta Facebook ee Inside the Haramain lagu sheegay inaysan sal iyo raatoona lahayn fariintaasi la faafiyay oo ay tahay mid aan ka iman Sheekh Cabdiraxmaan al-Sudaysi fariinta baahday ee baraha bulshada lagu faafiyay oo la xiriiriyay Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi oo ku saabsan 10ka dambe ee Ramadaan waa khalad iyo sumcad dil lagu been abuurtay ayaa lagu yiri qoraalka la soo dhigay Inside the Haramain sanadkii 1404 taariikhda hijriga waxaa loo magacaabay imaamka masjidka Haramain Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi isagoo xilligaas da'diisu ay aad u yarayd oo 22 sano jir ahaa waxaana xilligaas wixii ka dambeeyay sheekhu uu hogaaminayay taraawiixda sanad kasta sanadkii 1441 taariikhda islaamiga waxa uu dhameeyay markii afraad ee quraanka kariimka ah isagoo tujinaya xaramka sanadkii 1433 hijriga wareegto uu soo saaray boqor Cabdullaahi Sacuudiga ayaa sheekha ugu magacaabay madaxweynaha guud ee arrimaha Haramain in yar ka hor inta aan la ballaarin masjidka weyn ee xaramka kormeerayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku dhaawacmay duqeymo ka dhacay koonfurta dalka Lubnaan saddex ka mid ah kormeerayaasha qaramada midoobay iyo turjumaan ayaa ku dhaawacmay duqeynta ka dhacday magaalada Remish ee koonfurta dalka Lubnaan dhacda sida uu sheegay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee aagaas wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqeynta ay sameeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil balse militariga Israa'iil ayaa beeniyay inay mas'uul ka ahaayeen arrinkan howlgalka qaramada midoobay Anfil ayaa sheegay in dadka dhaawacmay iminka la dabiibayo isla markaana ay baarayaan halka uu qaraxu uu ka dhacay arrintan ayaa timid kadib markii ay sare u kacday xiisadda ka taagan xadka aan rasmiga ahayn ee Israa'iil iyo Lubnaan war qoraal ah oo ay soo saartay Anfield waxay ku sheegtay in madfac uu ku qarxay meel u dhow kooxda kormeerayaasha qaramada midoobay oo rondo ku sameynayay khadka buluugga ee qaramada midoobay
ay u qoondaysay ee kala qaybiyo koonfurta Lubnaan iyo Israa'iil. dadweynaha Turkiga ayaa codkooda ka dhiibtay doorashada dowladaha hoose ee Turkiga iyadoo xisbiga madaxweyne Erdogan uu rajaynayo inuu dib u hanto gacan ku haynta magaalooyinka looga adkaaday doorashooyinkii u dambeeyay ee 5 sano ka hor oo ay ka mid tahay magaalada Istanbul. dareenka ugu badan ayaa diiradda lagu saaraya Istanbul oo hay u ah ku dhawaad 5 meelood meel ka mid ah dadka Turkiga. duqa hadda Istanbul oo ah siyaasi mucaarad oo la yiraahdo Ekrem İmamoğlu waxaa loolan kula jira wasiirkii hore ee xukuumadda madaxweyne Erdogan oo la yiraahdo Murat Kurum. duqa Istanbul ee waqtigan Oglu ayaa loo arkaa in la tartami kara xisbiga madaxweyne Erdogan doorashada madaxtinimo ee soo socota. codbixinta dowladaha hoose ee Turkiga ayaa dhacday iyadoo ay jirto dib u dhac dhaqaale oo ba'an oo ay ku jiraan sicir barar ka jira Turkiga ku dhawaad 70%. dhinaca kalena kooxda ololaha madaxweyne Biden ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku cambaareeyay inuu baraha bulshada ku soo bandhigay muuqaal muujinaya gaari xamuula oo sida sawirka madaxweynaha Mareykanka oo lugihiisa iyo gacmihiisu ay isku xiran yihiin. kooxda ololaha Biden ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Mr. Trump inuu si joogto ah u kicinayo xasarad siyaasadeed ka hor doorashooyinka November. afhayeen u hadlay kooxda ololaha Trump ayaa dhankooda sheegay in dimuqraadiyiintu ay ku baaqayeen rabshado baahsan oo ka dhan ah Trump. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa muuqaalkan soo dhigay bartiisa Truth Social. marka la eego ciwaanka muuqaalka waxaa lagu duubay jasiiradda Long New York markaas oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump uu ka qayb galayay barordiiq loo sameeyay sarkaal ka tirsanaa booliiska New York oo la dilay xilli uu ku jiray shaqadiisa taraafiga. muuqaalka ayaa muujinaya 2 gaari xamuula oo wadada maraya kuwaas oo labadooduba uu ku dahaaran yahay calanka Mareykanka. gaariga labaad ee xamuulka ayaa lagu qoray erayada Trump 2024 waxaana sidoo kale saaran sawirka madaxweyne Biden oo gacmihiisa iyo lugihiisa isku xiran yihiin. waana midda dooda hadda ka abuurtay gudaha Mareykanka. muuqaalka xayisiinta Mr. Trump waxaa cambaareeyay kooxda ololaha ee madaxweyne Biden. Trump wuxuu si joogto ah u kicinayaa xasarad siyaasadeed kaliya weydii saraakiisha booliska Capitol kuwaas oo la weeraray iyagoo difaacaya dimuqraadiyadeena taariikhdu markay ahayd 6 January ayuu yiri afhayeen Michael Taylor oo ula jeeday weerarkii Congress-ka ay weerareen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Mr. Trump kadib markii uu si been abuur u sheegtay in doorashadii 2020 isaga laga xaday oo laga shubtay. balse Stephen Cheyung oo ah isna afhayeenka ololaha Trump ayaa ku jawaabay sawirkaasi wuxuu ku dhaganaa dhabarka gaari xamuula oo marayay wadada weyn. dimuqraadiyiintu iyo kuwa waalan kaliya kuma aysan baaqin rabshad ka dhan ah madaxweyne Trump iyo qoyskiisa. waxay dhabtii hub ahaan u adeegsanayaan hanaanka cadaaladda. Trump oo xisbiga jamhuurigu u soo magacaabay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ayaa wajahaya 4 kiis oo dambi ah iyadoo kiiska doorashada iyo tan wax isdabamarinta lacagta ee New York ay yihiin kuwa ugu daran ee maxkamadda laga dhageysan doono ka hor doorashada dhici doonta 5 November. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa iska fogayay dhammaan kiisaskaas wuxuuna sheegay in loo beegsanayo siyaasad ahaan. muranka la xiriira sawirka waa doodihii ugu kululaa ee ugu dambeeyay isdhaafsadaan labada musharax madaxweyne. damaciisa ah inuu ku laabto aqalka cad ayaa Mr. Trump wuxuu mar kale kordhiyay erayada uu adeegsado isagoo dhowr jeer kuwii loo xukumay ka qayb noqoshada weerarka US Capitol 6 January ku tilmaamay la haystayaal. waxaa sidoo kale lagu cambaareeyay faallooyinkii horaantii bishan uu ka dhiibtay Ohio isagoo digniino diray haddii aan la dooran. wuxuu hadalkan sheegay mar uu ka hadlayay gawaarida dibadda laga soo dhoofiyo iyo saameynta ay dhaqaalaha ku leeyihiin. kooxda ololaha Biden ayaa meesha ka saaray faallooyinkaas balse Mr. Trump
ayaa ku eedeeyay iyaga iyo warbaahintuba inay khadka ka bixinayaan.